السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدبني سلامية جودهان دتك كحران كنال كيجا لان إنجليش with حسن مقعيقو حسن عبد الله حسين وحن مانتا إدين سو ديارية صاحبي الشيكو أد حساب بدن أو عن عوان وقصو دقي wealthy hantidu does not always هذه جير bring does not always bring هذه جير مكينتو happiness فرحات إن شاء الله وحرجيني إن أتكم مقصود دونتين waxaa kaa codsanaya inaad muuqaalka aad like garayso kanaalkana aad subscribe garayso muuqaalka saaxiibayaal like gareeya si algorithmka ay u caawiso subscribe-na sameeya insha allah. Once upon a time waa waayaha ka mid ah a poor woodcutter alwaax jare sabool ah and wood waa alwaaxi kata-na waa jare kat marka keli waa jarid laakiin er marka lagu daro waxay noqonaysaa qofkii buu noqonayaa. So a poor woodcutter alwaax jare sabool ah and a rich businessman iyo ganacsade taajir ah. Rich waa taajir ayaa waa neighbor waxay ahaayeen daris. The woodcutter alwaax jaruhu used to live wuxuu ku noolaan jiray used to live wuxuu ku noolaan jiray marka used to haddii israacaan waa jiray waxa la soo dhaafay waay marka wuxuu ku noolaan jiray on the money lacagta which taasoo he obtains uu ka helo from the wood alwaaxda he sells uu iibiyo alwaaxda uu iibiyo lacagta uu ka helo ayuu ku noolaan jiray miskiinkan alwaax jaraha ah. At night habeenkii he used to enjoy wuxuu ku raaxaysan jiray a sound sleep hurdo macaan erga sound dhawaq waa la yiraahdaa sometimesna waa markii sleep uu ka dambeeyo waa macaan. So a sound sleep hurdo macaan buu ku raaxaysan jiray. The rich man ninka qaniga ahna always had a jeer so wuxuu arkayay the happy woodcutter farxadda alwaax jaraha ayuu mar walba arkayay. He saw wuxuu arkayay that in there was nothing ay waxba aysan jirin. He worried uu ka walwalo his poor neighbor dariskiisa saboolka ah ninka dariskiisa ah ee saboolka ah wax uu ka walwalayo inaysan jirin ayuu arkay ninkii taajirka ahaa. The rich man ninka taajirka ah was full of worries waxaa ka buuxay walwal himself nafsadiisa aad buu uga walwalayaa. He could not feel ma uusan dareemi karin happy farxad nor smile ama dhoola caddayn ama farxad midna ma uusan dareemaynin. waa yahay he always shut wuxuu had iyo jeer xiri jiray and bolted birana ku gadaami jiray every door albaab kasta and window iyo daaqad kasta of his house ee gurigiisa at night habeenkii. yacni shut waa xiridii boltedna waa guriga markii albaabka aad xirto inaad birtuug waxa la yidhaha soomaalida ay u taqaano bir oo guriga lagu sii tiirinaya baa jirto ama lagu taakaynayo. He could never sleep marnaba ma uusan u hurdi karin peacefully si nabad ah. He always worried about wuxuu had iyo jeer ka walwalayay the safety badqabka of his wealth ee hantidiisa. One day maalin the rich man ninkii qaniga ahaa ayaa called waxa uu u yeeray the woodcutter alwaax jarihii to his house gurigiisa ayuu ugu yeeray and gave him waxa uuna siiyey muxuu siiyey $5,000 $5,000 ayuu siiyey yacni dhiiqoo lugaa u geli rabaa and said waxa uuna ku yidhi I don't need uma baahni this money lacagtan please keep it with you ee adigu qaado it's yours adigaa iska leh. At first ugu horrayntii the woodcutter alwaax jarihii was happy waa uu faraxsanaa wuxuu ku faraxsanaa to receive in uu helo that money lacagtaas in uu helay aad buu ugu faraxsanaa maxaa yeelay waxyaabahaas uu ka ganacsan jiray. But laakiin soon si dhaqso leh the big amount cadadkii weynaa of money ee lacagta ahayd ayaa disturbed waxa ay qastay his happy life noloshiisii farxadda lahayd. For the first time markiisii ugu horreysay he closed waxa uu xiray and bolted birana ku taakeeyay the door albaabkii and windows iyo daaqadihii
of his house gurigiisa. He woke up waa uu soo kacayay several times dhowr jeer buu soo kacay. Times waa marar, severalna waa badan ama dhowr iyo jeerna waa la yidhaahdaa. During inta lagu guda jiray the night habeenkii, to make sure si uu xaqiijiyo that in the money lacagtii was safe ay bad qabto. Habeenkii oo dhan waa seexana ninkan 3 saacadood markuu hurdo haddana waa uu soo kacaya lacag waa balaayo. waxaa la yidhi adigoo iska faraxsan haddii qof $5 uu ku siiyo walwali ku gelinaysaa, maxaad ku samaysaa, intee ka bilowda, maxaad u iibisaa, adiga mushaakilaad fara badan ayay kugu furaysaa. inkastoo aan laga maarmin haddana waxaa la yidhaahdaa lacagtu ma keento farxad. marka waxaan kaa codsanayaa qaybta commentiga adiguna inaad nagula wadaagto fikirkaaga ku aadan lacagtu ma keentaa farxadda. qof waliba waxaan ka codsanayaa fikirdiisa inuu nala wadaago si aan anagana uga faa'iidaysano insha Allah. marka wuxuu soo kacay dhowr jeer buu soo kacay habeenkii si uu xaqiijiyo in lacagtiisii ay bad qabto. The next morning subaxii xigay the woodcutter alwaxjarihii went wuxuu aaday to the rich man's house ninkii taajirka ah gurigiisa. He said waxa uuna ku yiri to the rich man ninkii taajirka ah buu hadalkan soo socdo ku yiri, Sir mudane, please fadlan take back dib u qaado your money lacagtaada, so that sidaa darteed my happy life noloshaydii farxadda lahayd and sound sleep iyo hurdadii macaaneed may come back to me waxaa laga yaabaa inay dib iigu soo laabtaan. marka run ahaantii waa sheeko aad iyo aad u xiiso badan. yacni ninkan alwaaxdiisu soo jaranaya lacagta yarta ah ee uu ka helo ayuu isaguna, laakiin ninkan lacagtaas tirada badanna ayuu ilaalinaya. hal mar ayaan dul maraya anigoo caadi u akhrinaya. Wealthy does not always bring happiness. Once upon a time, a poor woodcutter and a rich businessman were neighbors. The woodcutter used to live on the money which he obtains from the wood he sells. At night, he used to enjoy a sound sleep. The rich man always saw the happy woodcutter. He saw that there was nothing he worried his neighbor. The rich man was full of worries himself. He could not feel happy or smile. He always shut and bolted every door and window of his house at night. He could never sleep peacefully. He always worried about the safety of his wealth. One day, the rich man called the woodcutter to his house and gave him $5,000 and said, I don't need this money, please keep it with you, it's yours. At first, the woodcutter was happy to receive that money, but soon the big amount of money disturbed his happy life. For the first time, he closed and bolted the door and windows of his house. He woke up several times during the night to make sure that the money was safe. The next morning, the woodcutter went to the rich man's house. He said to the rich man, Sir, please take back your money, so that my happy life and sound sleep may come back to me. The end. halka ayaan kusoo afmaraya guud ahaan muuqaalkii aadka u xisaab badnaa ee saaxiibayaal aan idinku soo talagalay. insha Allah ku muuqaaladan iyo kuwa ka sii xisaab badan waa idin soo wada. kanaalka subscribe garayso si aysan ku dhaafin casharada update-ka ah ee aan soo gelin doono insha Allah. kanaalkan insha Allah waxyaabo special ayaan kusoo gudbin doonaa. haddaba isha ku hay oo yuusan ku dhaafin oo yaan lagaaga sheekaynin. subscribe samey, share samey, like samey, وانا mahadsantiin. muuqaalka xigta la gaar waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo amaana Allah.